waxa uu maanta booqday telefishinka caalamiga Universal hoyga ay ka degan yihiin gabadhi bana oo muddo 5 sanadood ah weyday lixaadkeeda indhaha isla markaasna intii habeen saacatay ku soo toostay iyadoo indhaha ala isla markaasna muddo 5 sanadood ku tabaaleysnayd gudaha magaalada Buuhood ee xarunta gobolka gabadhan ayaa wax gargaar bini'aadnimo cidnaba aan loo fidin isla markaasna muddada 5 sano ahayd ku noolayd xaafad kamid ah xaafadaha ku yaala magaalada Buuhood waxayna qaar kamid ah waalidiinteedu u sheegeen telefishinka caalamiga Universal in ay gabadhaasi muddo 5 sanadood indhaha ay lahayd isla markaasna habeen ay seexatay aroortii ay ku soo toostay iyadoo indhaha la waxayna waalidiintani ka codsadeen ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta ee ku nool daafaha caalamka jecel inay wax bixiyaan isla markaasna gargaar bini'aadnimo soo gaarsiiyaan gabadha dhibanaha muddada 5 sano indhaheeda weyday waana kuwan qaar kamid ah waalidiintooda la hadlayay telefishinka caalamiga Universal waxaana hadaladoodii kamid ahaa إلهي حق وحك جاي وياه أنا وحك داعي وياه تيادهم بينتهي بس حتى يادو سلاس صوتوس حنو كاس شن سنة بهدهي إسبتال اللي مجني كبروا أبانا بدنا إسبتال مجني وحنا كل صارنا أورك ومعاش فوديش أنا قرقار بالأنماء نوفي كبرنا المدة شنت سنة عندها حنو ياي تبغى نوصير نوفي ديا نو قرقار نو دقة qoyska gabadhan ay ka dhalatay ayaa qoys danyar isla markaasna aan awoodin inay dhakhtar ama cusbitaal geeyaan muddada 5 sano indhaheeda weyday isla markaasna ka codsaday ummadda muslimiinta iyo ummadda Soomaaliyeed ba inay gargaar bini'aadnimo oo degdeg ah la soo gaaraan gabadhan da'da yar isla markaasna lixaadka xagga indhaha weyday dhinaca kale telefishinkan caalamiga Universal ayaa mar kale waxa uu booqday qoys danyar ah oo ku dhaqan magaalada Buuhood ee xarunta gobolka Cayn qoyskan danyarta ah oo muddo gaaraysa sanadii 6 bilood ay xanuun uga ildarneed inay yar oo jirta sanadii 6 bilood isla markaasna ay sheegeen inay geeyeen dhaqaatiir badan oo ku yaala gudaha madaqada Soomaaliya isla markaasna ay telefishinka caalamiga Universal soo bandhigeen warqada ay ku caadiyihiin baaritaano cadeynaya dhaqaatiirta la geeyay waxaana dhaqaatiirtu sheegeen in inanta yar wadnuhu u dalool isla markaasna ay ku dhalatay xanuun dhanka wadnaha isla markaasna aan dalka waxba looga qaban karin waxaana uu horeenkaasi ka hadlay Sheekh Jaamac oo kamid ah culimada diinka magaalada Buuhood waxa uu ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan daafaha caalamka iyo meel kasta oo muslimiintu ay joogtaba inay ka qayb qaataan gargaaridda qoyskan danyarta ah oo ay ka ildaran inantan yar ee ku dhalatay xanuunka dhanka wadnaha ah sheekhu arrimahaas ka hadlayna waxa hadaladiisii kamid ahaa salaawsiyaati a'maalina إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أولا وحنا صدر دار منا إلهنا كعبسنا سبحانه وتعالى ما دام إنه هيدا السلام وسيمد ثانيا وحنا هل كان سجون نمد وقيس كان عبد الرحمن حسن غير كيسة gabadhan aan rabnaa inaan ka gudbino warbixin dadka muslimiinta baxayana waxa ugu fadli badan waxa qofka qaraabada aad siiso oo nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu ka hadlayay nafaqada wuxuu yiri wabda biman ta'ul qofka ay nafaqadiisu waajibka kugu tahay ka bilow waxaad bixinayso marka qofka ehelka marka aan leeyahay islaamnimo Soomaalinimo marka in gabadhan oo la yiraahdo Ruwayda Cabdiraxmaan Xasan Ruwayda Cabdi Dheere gabadhaas waa gabadh yar magaceeda waxa la yiraahdaa Ruwayda waxay xanuunsanaysay sidii ay ku dhalatay bay u bugtaa xanuunkeedana waraaqana waa waraaqihii lagu baaray intii awood u ahayd waalidka dalka gudihiisa kale waxaan iyana u gudbinaynaa baaq guud ururada caalamiga ah sida ururka khaas ahaan Macaashin Foundation oo qaabilsan gargaarka caalamiga ah khaasatan dalka Soomaaliya inay ilmahaas iyaguna ay naga saacidaan sidii loo geyn lahaa caafimaadkiisa waxa looga qaban lahaa iyo dhammaan hay'adaha kale ee islaamiga iyo kuwa kale ee maartay caalamigaaba inay ilmaha la badbaadiyo naftiisa wax loo geysto waxtar ayaan codsanaynaa dhinaca kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qoyskii danyarta ah gaar ahaan hooyadii oo iyaduna ka codsatay ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta ku dhaqan daafaha caalamka iyo meel kasta muslimiintu ay joogaanba inay wax ka soo caawiyaan isla markaasna ay gargaar bini'aadnimo la soo gaaraan inanta yar ee xanuunka wadnaha ku dhalatay isla markaasna ay gargaar bini'aadnimo la soo gaaraan dhinaca kale waxa ay baaq u direen ay kaga codsanayaan in inanta yar wax kala qabtaan ururka Macaashin Foundation oo iyadoo ah urur
inta badan ka qayb qaata u gargaaridda dadka tabaalaysan ee ku dhaqan gudaha madaqada Soomaaliya isla markaasna waxyaabo badan oo gargaar bini'aadanimo ka qabatay gudaha madaqada Soomaaliya muslimiinta waxaan ka codsanayaa meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba inay soo caawiyaan ilmaha yarka ay igu soo caawiyaan meesha sidii caafimaadkiisa loola tacaali lahaa xagee wax ka qabalmo wadnaha dalo lahaa garka wadnuhuna waa xidhay waxaad ugu baaqaysaa hay'adaha caalamka iyo dadka hay'adaha caalamka iyo muslimiinta iyo islaamka iyo meel kasta oo dadku joogaba inay soo caawiyaan waxaan ka codsanaynaa ururka maama Caashir Foundation inay nagala qayb qaataan gargaaridda ilmaha yarka Najiib Cabdiweli Cabdixiis telefishinka caalamiga Universal